xagga ilaa gacanta ilaa madaxa xagga dambe ayay jug iga soo gaadhay imika ilaa ilaanka mararka qaar marka zaid u xanuuno uu igu soo kacaa horta aniga run baa fiican si xad dhaaf baan u jeclaa si xad dhaaf baan u jeclaa nolosheeda maanta adduunka waqti xaadirka haddii la odhan lahaa adduunko idiloo dhan inuu luga hooskaan unu keeni lahaa heer wax aan gaadhaba inaan nafteeda isdhaafiyo dhowr mar aan intaan mindi soo qaatay aan doonayay inaan iskeliyo mar waxaa jirta aan teedh cabay 2 bilood ayaan waxaan u dhexeeyay wallaahi bilaah cilaaj iyo dhakhtar waxaan ahaa maqana joogay maanta kamaan filanayn inuu saaxiibkaygu noqdo qof asigii nolosheedii iyo rajooyinkaygii iyo farxaddaydii iyo burburinayo cadho kuma qabo cudad kuma qabo indhihii ku rabay celi waayayo calaf baa dire cilla kulama rabo cilla kulama rabo halkeed isku barateen gabadhaad qisadaada jacaylidin dhex martay wallaahi ugu horeen waxaan isku baranay social media oo iska garanaysaa barnaamijyadii social media meelaha la isku barto ugu horeen waxaan isku baranay gabadha wiilaan saaxiib naanay oo isku dhaweyn aad iskugu dhaweyn dabadeedna adiga ugu horeyntii wiilka anaga asxaabana iskugu dhaweyn dabadeedna adiga wiilkan saaxiibka naanay ayaa mobil ku xumayo adan waxyaabahan isku baranay dabadeed inantii baan ku yiri aan arkay inuu saaxiib inantan waa doonayaa inaad barto aad markeeda siiso dabadeedna sidii buu isku keen baray inantii sidaas isku baranay maxay idin dhex maray markaa wallaahi dee waxaan dhexmar xaalad aad u badan weliba aan halkan lagu soo koobi karayn de horta xaaladahan ka soo maray ma u malayn karaayo qof duniyadiinu soo maray waxaan first onkii inantii waan isbaranay waddooyin hadh iyo habeen baynu wada hadli jirnay waxaan dhexmaray hadallo hasaabo fara badan wada sheekaysi dheer inantii dabadeedna adiga muddo waxaan wada soconay 1 year hal sano hal sanaan wada soconay waxaad sheegtay inaad inanta isku barateen social media sidoo kalena social media uu kuu sii dhib yareeyay saaxiibkaa soo ma aad u weynaa hal sano marka wada socoteen qisadiina jacayl maxaa ku dhacay markaa ma jacaylkiina markuu hana qaaday jacayl isdin dhex maray kadib maxaa dhacay wallaahi doorta inantu waxaan wada soconay hal sano san ku sheegay xiriirkiina horta intii ugu horeysay waa iska garan karaysa xaaladaha inta hore labada qof ay wada sheekaysanaya ama haasaabaha iyo ka wada dhexeeyo inta ugu horeeya waa wuxuu ku bilaamaya dee face aad u qurux badan waddooyin markaan wada soconay adag ilaa 4 bilood ilaa meelaha ayaa waxaa dhacday habeen ka mid a ayaa waxaa dhacday anuu suuqa ku maqan ayaa waxaa dhacday inantii inaan la hadlo horta runba fiican waxaa la yidhi jacaylka kugu horeeyey ama kugu dambeeyey inantu anuu jacaylkii ugu horeeyey waxaan u jecelahay suu xad dhaaf dee qofku ma ogtahay inuu jacaylka markaa siiso aad u fara badan aduu kugu badnaa markaa aad anuu igu badnaa marka adiga waxaa dhacday habeenada ka mid ah ayaa waxaa dhacday anuu suuqa joogo oo maalmahana xoogo waskeera suuqan alaabo soo doontay dabadeedna adiga waxaan ku yidhi suuqan joogaye hadhow waan kula soo hadlayaa waanu balansaneen habeenka marka meel baan ku kulmi jirnay oo xaafadaha ka mid oo walaasheeda dabadeedna waxaa dhacday waxaan ku yidhi ku imaanaya caabe xaafadan kugu imaaday insha allah hadduu ilaahidmo dabadeedna waan baxay xaggii baan ka baxay marka cuntooyin waxyar baan u qaaday waxaa dhacday markii dambe inaan gurigii markaan ugu tegey albaabka markaan u dhowaahay ayaan ku yidhi walaal waan taaganahe albaabka iga fur dabadeedna waxaa dhacday inantii inay yarisug xoogaho waxaa jooga adeeraa jooga maxay dumaashibaa jooga dabadeedna cabaar muddo saacad ku dhadhow
ayaa banaanka taagnaa. Dabadeed waxaa dhacday markii dambe inaan ku yidhi markii dambe hay waa xilli dambe weeyaan waqti fara badan waan taaganay maxaa xala. Dabadeed waxay ugu tiri walaal yar suubal xoogo walaaliba adigu qofku markuu wax damacsiin wad garan karaysaa dee wajigiisa. Dabadeed waxaa dhacday markii dambe inaan ku yidhi intana waxaa magaceeda ma doonay inaan sheego. Markii dambe waxaa dhacday mar dambe inay albaabkayga furtay diiday waqti fara badan markii meermeerisay isla habeenkii markaa isla habeenkii weeyaan ay inta waqti badan intii meermeerisay ayaan ku yidhi marka dambe walaal ma taagnaan kara intaan ka fara badane insha Allah habeena kale isku maaneynaa. Guriga markaan tagay waan la hadlay waxaan ku yidhi si wax u jiraan weligii hal saac albaab ka badan igumaad eegi jirin sideyba wax u jiraan. adiga waxay way marbeersamay wallahi maxayba gurigii waa la joogaysaan in ku walaal mid ma ku sheegaa ma garan karaa gaabiskan adigu kugu yimid dhinacaaga sidee bay wax u jiraan. Markii dambe adiga waa iska garan karaysaa dumar inay qiil samaystaan oo ay been iyo wax iska ayaan ku yiri dhima laha. Markaad adiga waxa jeceshahay haddana wixii laga jahil saar waaye danta waxaad ku bidaysaa qofkan inaad weyno aad xalku adiga inaad wixii oo dhan aad ka samarto dee aad barta ku deyso oo aan saas oo badan u sii barbaarin. Dabadeed waxaa dhacday markii dambe inaan dhowr habeen markii ka soo wareegatay ayaa habeenada haddana ka mid habeenkii labaad sidiisa leeg ayaan ku yidhi casarnimadkii baan la hadlay. Dabadeed waxaan ku yidhi waan ku imaanayaa bal insha Allah haddii xataa ku noqon weydo gurigii meelo kale aan iskugu nimaanaynaa. Dabadeed waxay igu tiri waayo waa si wanaagsan gurigii walaalaan joogayay marka walaashii ayaa meel in yar u dhaweyd xaafadooda yaa reer ku leeyahay xaggaas. Dabadeed xaggaasaan ugu tegey anuu dhexda kusii socdo ayaa markaa albaabka iska furnaayo waan iska galoon. Dabadeedna wallaahi meesha waxaa iga soo baxay waxaan u qaadan waayey. waxaad u qaadan weydaa adoo wallaahi wuxuu ahaa horta naxadinta kala dhow meesha waxaan ka filanayay aduu maanta ahaan lahaa qof kale oo u qaadan lahaa because of wuxuu ahaa wiil saaxiibkay oo aad aniga iskugu dhowna. Dabadeedna waxaan arkay labadooda wada jooga dee waad iska garan karaysaa qof aad adiga intaasoo dhan aad soo wada socoteen oo dhib iyo dheef oo soo wada qaybsateen oo tacabkaagii dhan aad qofka wada gelisay oo aad enerjigaaga dhan ku wada bixiso hari habeenaad la hadlay markaad ku aragto qof saaxiibkaa xataa weliba dee kala dhowey saaxiibkayga niigu dhowbu ahaa waan ku tashan karee ma garata. Dabadeed waxaa dhacday inaan ku arkay wiilkan saaxiibkan aan iyagoo wada fadhiya aqalka. Hadda in ka horna waxay u tiri ii kaale gurigii baan joogaa. Isla markiina waxaan ku arkay inuu iyagoo wada fadhiya oo wada qusilaayo iyagoo wada qusilaayo oo wada faraxsan oo dee relax iska wallaahi horta aad habeenkaa ma u malaynayo habeen iga xanuun badan ama habeen iga damage badneed because of waxay dhaami lahayd because of inaan aniga bartaanu nool lafta layga qaado waayo wallaahi waan u qaadan weeye. waayo waxaad ii sheegtay inuu gaari ku jiray gaarigu goorta ku jiray goorma ahaydee horta isla xaaladii markii aan meesha adigan kasoo dhaqaaqay waan garan kari waayey cer ii dhul meelaan joogay wallaahi maan garan karayn. waan garta samada garan banaankaan usoo baxay markaa aragta dee inaan iska soo galo cidna gurigeena joogina soo galay. Dabadeed way kaal maxay waxba nagama dhexeeyaan wiilka saaxiib waxaan iska nahnaa asxaabo keliya ayaan ku yidhi asxaab inta la wada fadhiisto guri keliya guriga lagu wada kulmo oo weliba isku dhowdihiin macquul ma noqon karayso samada garan.
صح dhib ma lehe way dhacdaa tan markii aan kasoo dhaqaaqay aan guriga kasoo baxay ayaa waxaa dhacday waxaan ahay aniga dadka markay xanaaqaan mir doorsooma dabadeedna markaan dibadda soo baxay guriga markaa wuxuu dhawaa laamigu yara saarnaa صح dabadeedna waan kasoo baxay gurigii waxaa dhacday inaan tensionkeyga oo dhan uu wada lumay oo dee waa dareemi karaysaa mir soorsan mir doorsoomay صح dabadeedna waxaan arkay markii dambe anoo meel jiifa oo dadkii dhan igu wada buuqsan yihiin صح oo dhinac dhan ilaa ilaanka nabarkoo igu yaalaa tusna warada gacma marta ilaa xagga ilaa gacanta ilaa madaxa xagga dambe ayay jug iga soo gaadhay imika ilaa ilaanka mararka qaar marka zaid u xanuuna uu igu soo kacaa صح dabadeed waxaan arkay dadkii oo igu soo wada aruursanoo inuu isoo hareeriyey صح dabadeedna markii dambe wiil adeerkaya oo taxi wataa صح ayaa markiiba wiil aan asxaabnana sinu iskugu dhaweyno meeshaan ka fogay ayuu wacay dabadeedna meeshii baa laga kiciyey dhakhtar baa la geeyey waa laysoo dhaydhayay dee qofka waa la dhigi karayaa dhaawaca jirka ah balse laakiin ka qalbiga so lama dhigi karayo markii dambe say kasoo wareegtay markaa mobil waxaan sitay samsungi ahaa ilaa samsungiga mobilka ahaa uu burburay dabadeed ilaa muddo week baanaan wada hadlin inanti aanan ka wada hadlin qadka waayo dhaawac fara badan bay soo gaadhay oo ilaa iyadu ma ogeydo inaad xaadir baheed way taagneed meesha marka kadib dhakhtar iyo halkii lagu dhigay iyo caafimaadkaaga ma la socotay may wallaahi lamay socon bartiga may soo dhaqaaqin ma laga yaabaa markaa waaye marka adigoo aad nila jooga aad ugu tagtay oo aanay waxba ka dhaxayn aduu sidaad sheegtay laakiin dee iyadoo isay kuu sheegtay laakiin adoo aad ogtay inay wax ka dhexeeyeen gaarina ku jiray xaaladaada caafimaad aanay igu war dambe soo aadin iyadoo arkaysay gaariga ku jiray ma laga yaabaa loofka aad markaa aba jacaylka dawtay in adigu khaas kugu haayo aanay iyadu ku dareemin horta because of horaa loo yidhi qofka jacaylka ama wiilka ku horey ama gabadha ku horey horta aniga runbaa fiican si xad dhaaf baan u jeclaa gabadhaas صح si xad dhaaf baan u jeclahay nolosheeda maanta adduunka waqti xaadirka haddii la odhan lahaa adduunku idiloo dhan inuu luga hooskaan unu keeni lahaa because of jacaylkan u qabo wuxuu ahaa mid indhahay tiray indhaha wax walba wixii geyaankeeda dumarka oo idiloo dhan adduunkii waxaan dhaafsan karaa may jirin waayo waxaa ii sheegtay xaaladihii adkaa ku soo maray inaad xitaa ku fikirtay inaad noloshaada isdhaafso ma jirtay taas wallaahi way jirtaa because of markaan nabarkii kasoo kacay aan bogsaday muddo adag ilaa bil ah ayaan nabarka kasoo bogsaday dhakhtarkii kasoo baxay aan dabadeed markiibaan mobilkii soo hagaajistaan aan la hadlay dabadeed waxaan ku yidhi maxay u ahaayeen wixii aad adiga inankii naga wada dhexiyay oo aan weliba saaxiibka ahayn maxaad meesha ka wada qabanaysiin waxba kamaan wada qabanayno waan wada asxaab baan ahayno waxyaabo kalean ka wada hadlaynay barnaamijyo kale in kuriyo haddii barnaamij laga wada hadlayo waxaa jirta meelo kale oo lagu kulmo oo dee sida banaanka kale waa ku wada hadli karaysin maxay tahay markaa qolka waxaan labadiinu kaliyin iyadoon wada keenay oo iskugu dhaweedayn weliba dee horta hadalka igamay wada qancin waxay kula hadashay weeday dabadeed waxaa dhacday inaan barti ku daayay iyada bartaan ku daayay waay sababta markaa adigu aad isku dilaysay aad iga sheekaysay maxay xanuun dartii because of waxaan ka kabsan waayey intii oo daryeel waqtigii faraha badneed had iyo haweenaan usoo jeeday oo dee ilaa waagi inta laga baryayo dhan aan wada hadlayni dabadeedna horta alxamdulilah ilaahay waa iga badbaadiyey because of ma garanayne heerka
علشان أن مالك أن كنت هنا إني قلد هاي إني صح هاد وايو مركو قفك حالات كتيرو حس ما تهجرين هايو محمد ميفيعين ميحوين هذا حالة مركا مدبلان كلا دماني واحد عادي إن heer wax aan gaadho inaan naftayda isdhaafiyo dhowr mar aan intaan mindi soo qaatay aan doonay inaan iskeliyo mar waxaa jirta aan teer cabay mar waxaa jirtay wallahi bil xaalado aad u badan markii dambe alxamdulillah horta waan markii ay iyadu kaga baxday jacaylka xaaladahaaguna ay saahayeen waxaad ka sii xasuusto ugu daraa ma jira والله ويجرتها وايو because of انتي ودن وايو شل با قالي ان حالدي دمي ونا السلام عليكم إلا ما يسوى شل بان قالي إما يسوى ينو حالة سيهد اخترك يقوم إيمان حالة كم يسوى ردون ان انتا كسوكو حتى لباب بلود ايام نحن ودحي والله بالله علاج يو اختر waxaan ahaa maqana joogay gibiga emotionalkayga iyo dareemahayga iyo maan wada joogin 2 bilood oo dhan waxaan u dhaxay marna dhakhtar leedigay marna leedigay ilaaj dabadeedna heer waxa la gaaray xataa xaafadda ay yiraahdaan ninkan malaha waxa haysa ama ku dhacay dhiiglaan dhakhtarada marka la geeyo la baaro dhiig laga qaado ligoorana negative weeyaan waxba ma qabo mar ilaajka markii la geeyo sheekhu markuu quraanka igu tufo igu aqriyo ma jismiyan ma joogi laakiin xaadirka meeshan ku suganahay iyo meeshan joogi iyo habka ficilkiisa wax u dhacayaan oo jooga laakiin wixii ila ahayn aago kala dad meeshan وأن كب إسكت مش إسكت أنا شوقا أو أياد هاي حضر لما أنت أصلا روايات بتصمرتي محمد أن مركز إسحاسوسته ما أنت حيل جانا جوكتي ما أنت نشرا واحد الله يابطو عدي تهدي تانكا تتعمل كمية سوقات واحد الله يابطو تسترامني ومركي عساهيد ما أنت ذا أدو إسلا يابطو نشرا والله ويجرتها ومحي وحويين because of marka horta xaaladda aan ku sugnaa waxyaabaha aan la yaabay aan markaan xasuusto aan anigayga dib iskugu qoslo because of maanta day wiligeed baa la kala dhamaadaa wiligeed bay xiriirka dadka kala haraan horta haddaan nafteeda jari lahaa ilaahayna hortana dembi baan ka geli lahaa adduunna waxbana maan kororsadeen horta shayga aan inaan go'aanka maalinkan qaatay inaan nafteeda dhaafiyo iyo waxyaabaha ficiladan ku dhaqaaqay markan dib xasuustaan wallahi waxyaabahaas kolan dib iskugu qosla ama iskula yaaba aan nafteeda dhaafiyo because of waayo waa la helaa qof aad nolosha dib ula wadaagto laakiin naftaada ruuxi ilaahay inuu ku xisaabinaya waan lagu weydiinaya aakhiro nafteenan iyo jismiyan ruuxin iyo ilaahay wuu nagala xisaabtamaya waay muuqaalkaaga waxa laga yaabaa dad badan buu gaaraya hablo badan baa waxa laga yaabaa inay ku calmadaan ma xad oran karaysaa maanta ma waxa tahay qoftii waxa ku sameysay u jaran soo xatay qof maanta ka soo kabtay oo maadartay xiriir kala leh wallahi horta taa waa su'aal muhiim weeyaan horta waqti xaadirkan aan taaganahay iyo xilligii إلا أبتناوغا قوان كاقاتي horta way jiraan hablaan intii dabadan laha ila soo hadlaan laha hadlay balse laakiin hadana ma ogtahay marka mar wax jeclaata ama aad kalsooni aad bixiso ama aad qofka kalsooni siiso mar labaad kalsoonida inaad dib u heshaa way adkaanaysaa sax marka qalbigaaga ku adagtay inaad qof kale kalsooni siiso qof kale wallahi aan dib waxaan ii sawirmay ama cabsi aan ka qabaa noloshii hore inaan dib ugu noqdo iyo xanuunkii farabadan aniga waxaan iska dadka qalbiga jilicsan markiiba qofka aan nolosha ama nolol wadaagi naga dhaxeeyo emotionalkiigan wada siiyo mar kaliya mana imika go'aan wili kama oran karay maan ka quusan nolosha balse laakiin
dib waan isku kabayaay waan isleeyahay inaad jaanis badan aan weli haysto ama aan siin karaayo. waay intaasoo dhan iyagoo jiraan ma jiraa qof aad maanta la sheekaysato oo xidhiidh la wadaagto? Wallaahi gibigayga waan kuu sheegay because of aniga dadka qofka waan la hadlayaa because of labcisho markaan la hadlo aan ka waayo qofkii hore in noloshaan kala wadaago kale aan muunadii aan ka dhex arki waayey dee qofkii way igu adkaanaysaa mar kale inaad xiriir kala sameeyo. iskumanaanan dayin weli sidii. sax. haddii intaasoo dhan aan kusoo raro haddii maanta aad ahaan lahayd yacni qof imankoo kale xataa nin saaxiibkii qoftuu la sheekaysanayay oo dee yacni ka dabcayaanba iyadu ka jeclaatay isaga saaxiibkaa ma kula soo hadla xiriir ama ma kula soo sameeyey yacni maanta? Wallaahi may because of waayo meeshan ka fiilanayay iyo siduu igu noqda waayo because of saaxiib horta badanaa inaga saaxiibadaynu samaysanayno iskama eegno waayo because of dadba waxaa jira saaxiibtinimada dusha saaxiibtinimo ka sheegtaa oo hadhow dhabarka kaa tooganayo adigii kugu noqonaya attack iyo inuu dee noloshaada hor istaago. horta ilamuu soo hadlin haddana adaan ku dhaho isku deegaan bay nahnay mar walbaan iska soo warbaxnaa oo isku xaafadaan nahnay. haddana markaan arko wallaahi horta markaan asiga arko nolosheedii iyo burburkeygii iyo waxaan ka dhex arkaa mar walba qofkii asigii waa cadowga. maanta kamaan filanayn inuu saaxiibkaygu noqdo qof asigii nolosheedii iyo rajooyinkeygii iyo farxaddaydii iyo burburinayo. wallaahi markaan welina ilamuu soo hadlin. waay maxamedow maanta inantii waxaasoo dhan idin dhex mareen waxkee joogtaa? wallaahi weli Hargeysay joogtaa weliba saa umaanan sii kala fogeen. iyada laftarkeeda xoogoo baan isku jirnay welina isna waanan soo hadlin waan iskugu jirnaa qadka. intaa waan arkaa inay horta wiilkii saa iskumay sii kala waarin oo calashamay iskumay sii wada joogin may sii wada joogin. imanka markaan arko istaaskeedii meelaha qofka dee intaa social media laiskugu jiraayo waan arkaa intaa. haddana markaan dareen ahaanteeda markaan arko runba fiicane weli waxbaad mooday inaan ka tabanayo ama aan moodayay inaan doonayay rabitaan iyo inaan calashaan iyadu maanta hadday ku tiraa yani ay kugu soo noqoto jacaylkaaga tiraa waan hayo yani inay xidhiidhkeena dib u soo celiyaan ayaan rabaa ma aqbali lahayd? horta dee sababaan ku aqbala mar kale waayo ma jirto. waayo marka horaan qofka mar buu wada bixiyaa dareen iyo kalsooni iyo dee calashaan qofkii inuu mar jaanis u siiyaayo inuu la sheekaysto doonayo. laakiinse anigii imanka waqti xaadirka hadday la soo hadli lahayd mana ogolaadeen. waay horta aniyow qisadaada waa qisada maaragtay aad u adag marka laga hadlayo yani qof yiri yani qof aan jeclaabaan darteed isku dili gaaray. waa nolol adag weliba maaragtay qofuu naftiisa bixiyo laakiin saameynta ay kugu yeelatana waa mid weyn soo ma? aad u weyn ilaa alaankan ay igu leedahay saameyn. waayo waxay igu leedahay heer waxay nacsiisay aan dumar ku kala soonaado ama aan mar labaad qof jaanis ku siiyo aan kula hadlo. maanta hadduu qof ila soo hadlaa maynan hadday noqoto
mas haddaan waan ka baqanayaaba because of waxaan soo oranayaa waxaa laga yaabaa dad jaaniskii kol dib aad ugu noqoto noloshii foosh xumeed iyo xaaladihii adkaa iyo noloshii oo dhan iminka dumar oo dhan weynacsiis marka waay gabagabada barnaamijkeena amba wareysigeena ma jiraa fariin aad u dirayso maanta haddii ay muuqaalkaaga daawato hadday gaadho weeye weliba way jirtaa weliba hees markan mar walba dhegeystaan aad u jecelahay inuu dareemahaygana ay ka waramayso waxay odhanaysaa cadho kuma qabo cudad kuma qabo indhihii ku rabay celi waayayoo calaf baa dire cilla kulama rabo cilla kulama rabo ciirsi baad ahayd cawin jiri naftay ceeb kumaad lahayn cashaqii hakaday ceeb kumaad lahayn cashaqii hakaday waay fariin iyada afkaad u diraysaa ma jiro miyaa way jirtaa maxay tahay horta noloshu waxa weeyaan waa maalmo iminka wax aan u qabo ma jirto aan ahayn inaan xalmo aan laabta ka sii daayo cafi musaamax because of xaaladaha markaan wallahi aan qisadeyda aan ka waramo ama nolosha emotional ahaan caadi ma noqdo waayo waan yara depression garoobaa aad baad yani saaxiib aad baad u mahadsantay wareysigaaga sidaad noola wadaagtay